كيسان ولا تجينا إن خير رئيس الوزراء مرسل خير بلاد أفريقيا كاسرة إن هذا الحمر ما دنا موريا دنا ما مرسل دلا مقدسة ما قرينا تكايسة تامها وحويان معمل الصومالي لأنه وحصل أصلنا سيا ولا سيا بدن إن موجود صادران ديارهم أنا ما فيها قادر باقي يوم وبالله توفيق استمر مرسل وعمر عثمان dadka boqolaal ku kor u dhaafaya waxay afar casho hor taagnaan isbitaalka waxay ka cabanayaan cabasho iyo takoor iyo dulmi joogto ah oo lagu hayo maalin walba waxa lagu laayaa suuqa waxa la dilay xildhibaano uu kamid ahaa xildhibaan Yuusuf Dirir Cabdi oo ciidan madaxtooyada ka soo baxay ay jidka makaal makaraba hortiisa ku googooyeen ninka marxuumkan maanta aanu ka hadlaynaa ee mursal wuxuu ka tirsanaa shaqaalaha farakutiriska ee ka soo jeeda jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ka shaqaynayay maxkamadda sare oo ka hagaasimay waa loo quuri waayay waa laga dagaalamay waa laga soo shaqeeyay kii uu gurigiisa joogay ee uu gacanta ku hayay ayaa baaskoolad ku googooyay markii dambena wax la yiri yaa idin soo qabanaya looma ooyaan baa tihiin ma garanayno waxa loo dhimanayo luqadayada marka la fahmaado lagu colaadinayaa masaliga barbaraan lagu colaadinayaa ma wax kala waxaanu arinta ka codsanaynaa kuwa halka jooga madaxda ka iyo kuwa xagga joogaaba inay arinta ka hawl galaan dadkani haddaan halka lagu noolaan karaynin oo ay South Africa noqotay waa in meeshan laga tabaabushaysta oo laga dareeraa sabab alla sabab loo joogaa ma jirto waxaanu ka codsanaynaa dawladda federaalka madaxdeeda madaxweynaha iyo prime ministerka oo in badan ku celceliyay qofkii qof dila waa in loo dilaa waa inaanay af noqon waa inaanay qabiilka laga baqayo xooggan ee hubaysan oo aan loo dilinin waa in dadku sinaadayo cadaalad midaysan la helaa waxaanu kale oo sheegaynaa siyaasiyiinta ka soo jeeda Soomaaliland ama waqooyiga ee maxkamadda sare ay kamid tahay ee wasiiradu kamid yihiin ee xildhibaanadu kamid yihiin ma aha dadka kani leeyahay difaaci kara ma aha waxay ku difaacdaan shaarkooda iyo xilkooda iyo xoolahooda dadka kani qof allaale qof kamid oo ay sarkaan ma jirto nin waliba markii qof dhinto teatal ku helaa taa waxa uu maraga halka Yuusuf Dirir ku dambeeyay bal ma mag baa laga qaatay ma nin bacidi dishay baa loo dilay miyay xidhan yihiin bal halka taa la ogaado dadkaasi mursal lama aasayo ilaa iyo ninkii dilay loo dilo waa halkaas falajaarkaas ku jiraya halkaas ku jiraya waa in la isku dhinacaasa waalidkii oo la rabo burco ku nool oo laga been sheegay oo la yiri waxay yiraahdeen diyaanu qaadanaynaa maydkii oo dabada yaala waxaanu ka codsanaynaa inay soo hadlaan mowqifkooda cadeeyaan sheegaan waxa ay doonayaan wassalaamu calaykum madaxweynaha ka codsanayna ninkaas ra'iisul wasaaraha ay ku jira waxay tahay in waxay ahayd waa si degdeg ah inuu qabto assalaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim shacabka Soomaaliyeed waxaanu aad iyo aad uga cabanaynaa dilkana lagu hayo xasuuqana lagu hayo dilka joogtada South Africa inoo tahay waa noo maalin madow fikir baanu taaganay meedka iyaga saddex habeen ku jira haddaan wax laga qabanin ra'iisul wasaaraha ku fadhiya maanta talada madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa meedka waa in loo aaso ninkii dilay la isu baalgeliyo wax kale maanta annaga aanu doonaynaa ma jiraan waa in laga dhigo dadka sinaan waa inaan la isugu la odhanin maamulkaasi wuxuu jiraa meel dad matalaya jooga meesha dadka matalaya dad anaga dambuusan kara ma aha mana matalaan odayaana matalin xidhibaan baana matalin mid markuu fara ku tirisan la joogo inta kale albaabada naga soo xidhay shacabkaygu waa dulmayaan doona Soomaaliland mana doonayno mursal halkuu maray hal marsiyo gacan ku ninkii dilay lama baarayno xukuumadda hogaaminaya ra'iisul wasaaraha maadaama agaasimaha ee maxkamadda sare meedkiisa saddex soo yahay fikir waxna laga qaban waayay gacan ku dhiignihiin uu dubu gashaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayr aad iyo aad baan u cambaaraynaa waxaanu leenahay haddaan si degdeg ah maxkamadda loo saaro oo loo dilo oo loo aso inaanu aqbalay saamayn doonto shacabka reer Soomaaliland ee gobollada waqooyi iyo koonfurta arrintaas ay saamayn xoog ku yeelan waxaan kaloo cambaaraynay odayaasha ugaasha iyo koofiyadda ee xundurtii ummadda sheeganaya halbawli sheeganaya وأنا كسر شيء وإحنا ودعم الرع أما مثلاً ترى كذا كل شيء معايا ترى كل ما كل شيء معايا وإحنا
ويان ذكر ويسكو قلبي ويسكو هيمينو ويسكو فكر واحد يسكو راعي وقعان يوم موقف يسكو قاتل إلا عصمه ينا لقى قادم وبالله التوفيق وينها رئيس وزارها وضع الصوماليين إنه نلمد نهاي dadku Soomaaliyeed xamar joogan hadii aan loo dilin ninka iga dilay 3 bari buu ku jiraa hadaan loo dilin anagu ma yeelin olayaalana ma matalaan waxna maaha anaga ayaa isku waxa hadii loo dilo waa ninka iga dilay oo nala tusi waayo meeshii lagu dilay ninka igu ku jiraya meeshaas wabillahi tawfiiq waa ka qaadataan baan anaguna idinkula soconaa oday gaar wuxuu qaadan karaa siyaasi cid afduubi kara ma jiro cida iskale dhiiga go'aanka ay qaadato iyo bulshada ballaaran ee ka soo jeeda meydku go'aanka qaadataan ayuun baan ku shaqaynaynaa kaasuun baa inoo balana aan saarnayno dalkeedii oo yana aan aadayno haddii aanan anaga dawladda federaalka waxba ka ahayn ha noo sheegaan madaxweynaha